maanta waxaan ku sugannahay magaalada Burco ee magaalo madaxda gobolka Togdheer magaalada Burco iyo guud ahaanba gobolka Togdheer waxa ay leeyihiin taariikh aad iyo aad u fac weyn hadday noqoto halgankii gobonimo doonka hadday noqoto dhinaca suugaanta oo halabuur fara badan ay ka soo baxeen gobolkan iyo magaalada Burco waxa kaloo ay leedahay arrin laga yaabo in aanay dad fara badan ka warhaynin sharikad maanta adduunyada ku leh oo adeegyadeedu ay gaadhaan ilaa 150 wadan ayaa ka soo unkantay magaalada Burco sharikadaasi waxa laga yaabaa in qof kasta oo Soomaaliya in si uun adeegyadeedu ay u gaadheen ama lacag ha ka qaato ama lacag ha ka diro oo manaafacaadkeedu ay si uun u soo gaadheen qof kasta oo Soomaaliya ama xitaa adeegyada faraha badan leh xagga tabaruca iyo gargaarka sharikadaasi ay samayso waxa laga yaabaa in dad fara badan oo Soomaaliya ay gaadheen waa sharikada Dahabshiil haddaba maanta waanu ku suganay magaalada Burco barnaamijkan waxa marti igu ah Cabdirashiid Maxamed Saciid oo isagu maamulaha guud ee sharikadaha Dahabshiil Group Cabdirashiid laftiisu waxa uu ku dhashay magaalada Burco meel aan ka dheerayn halkan imikaanu joogno Cabdirashiid oo ku salaamaya Cabdisalaam ku soo dhaw magaalada Burco aad iyo aad baad u mahadsantay maadaama aad magaaladan ku dhalatay magaaladani waa kaaga dhowday dhulka kale oo dhan absolutely waa magaalada shirkadu ku dhalatay oo magaalada anigu aan ku dhashay marka saad u sheegteen oo magaalo dad badan oo Soomaalida magac ku leh ay ku dhasheen ama ka soo jeedaan Cabdirashiid waxaan ka warhayaa in shirkadda Dahabshiil oo maanta maamulaheeda guud aad tahay in adiga qudhaada ka hor dhalatay orta aaba shirkadda halkan ka aasaasay gooban ka fogeyn ayay ka aasaasay aniga laftiisaan ku sheegay waan ku dhashay isbitaalka ku dhashay inaga ma fogo waa inoo dhow yahay marka yaraanteed baan aaba la soo shaqeynay markuu aaba aasaasay marka xusuuso badan bay magaaladan isaan qiyaasay ku leedahay dhinac walba halkii aad eegtaaba aniga waa xusuus yaraanteed bay saameynaysaa iskuuladii naga jiray Burco mid xagga naga xiga marka Sheekh Yuusuf Kaynuun waa isaga laftiisaan ku sheegay inaga ma fogo iskuulka yaraanteed naga jiray markaan yaraa isbitaalka xagga naga xiga hadii xeradii booliiska lafteedu iyada lafteed dhinaca bayda inaga xigtaa wadadana waxa kale kugu xidhaysay waqtigaas hadda xagga u kacday Muqdisho qabanaysa waa tay hadda xagga u kacday waa Hargeysa hadda xagga u kacday waa Hawdiya Ethiopia hadda xagga u kacday waxa weeye waa galbeed waxa weeyaan ilaa iyo Oodweyne iyo magaalooyin kale magaalada dabadeeda ku xidhnayd bay ku xidhnayd Burco waxa weeyaan magaalo dadka Soomaaliyeed markaan yaraan isu keeni jirtay imikana qayb ka badan isu keenta goordhow waxaanu soo eegi doonaa sayladda oo dabcan aad halka ugu caansan ama xarunta ganacsiga ee ugu weyn ee magaalada Burco laakiin meel ka mudan ma jirto isbitaalka ma ka bilowday isbitaalka saxbi markii aad yareed Cabdirashiidow Burco muuqaalka lahayd iyo kamaanta hada ka waran Cabdisalaam runtii meelo badan oo Burcoodii aan yaraa aan joogay waqtiga dhul badan waa sidiisii imika halkan qaybta booliiska ee gobolka Togdheer midigtay naga xiga wali waa sideedii waxba iskama bedelin baa la oran karaa waa tay wadooyinka qaar waxba iskama bedelin meelaha qaar way isbedeleen markaan anigu yaraa may jirin in wadada la hordago oo maartay loo ogolaado meheradaha ay ku yaalaan meheradaha nimika kuwa kale way ku cusub yihiin waa tay quruxdii magaaladu waa tay laamiyadan oo qurux badan bay ahaayeen markaan yarayn xagga dambe waxa ka dambeeyay laakiin xagga koboca markaad eegto aad bay isu bedesho ay u weynaatay kobocu waxa weeyaan waxaan oran karayaa waa Burco cusub dhinac walba way ka kortay dadku way soo bateen guryo badan qurux badan baa ku yaala dadkii way imika way dadka tiradii ka badan tahay dhalinyaro badan baad ku arkaysaa bajaajkani ma jirin markaan anu ku koray shaqeeyay magaalada bariga ma shaqeyn jirin way gabadhada yareed maartay karaasiidada oo karaasida gaari mooday ma wax loo hees jiray markii gabadhadu karaasida dabada ka timi iyo basaska iyo gabadhaas way yaaleen laakiin bajaaj iyo wax ku wada cusub Cabdirashiidow ganacsigiinu markii aad yarayd xusuustaadii ugu horeysay sidee buu ahaa khaasatan xagga xawaalada oo kale ganacsigu waqtiga sidaan u yaray buu yaraa marka ganacsiga aaba waqtiga aasaasay wuxuu ahaa mid wadanka gudihiisa aad looga iibsado isla markaana uu dibadda lacag adag uga baahdo marka waqtiga wuxuu tagi jiray mar cadan buu tagi jiray
mar wadamadii carabta Soomaalidu ay kulida ka shaqeeyaan laakiin waqtiga aad ay u badnaayeen baa jiray marka lacagta adag buu ka soo qaadan jiray xagga ama alaab ku soo iibsan jiray tan wuxuu keeni jiray burco marka looga sii qaadan jiray dhammaan dhulka Soomaalidu ay degto marka xawaaladu waxay ahayd xawaalad loo dhoofo ilaa xad loo dhoofo baa ahayd telefoonadii tooska ahaana ma jirin waa sida technology maanta isu bedeshay ma jirin way adkayd cisbitaalka ku dhashay Absala waa kan عجيب halkan baa hooyo barigaan halkan buu ku yaalay soo halkan buu ku yaalay halkan baan ku dhashay hooyo calooshaygu sidaa keentay anigoo ifka ku soo biiran halkan baan ku soo baxay ya marka cisbitaalka wuxuu kamid yahay noloshayda qayb kamid ah ayuu kamid yahay Cabdirashiid bal waqtiga haba wada sheegine goormay ahayd marka xilligaas kul adiga waa ka yar Absalaan laakiin waa dhowr iyo 70kii ayaa ku dhashay cisbitaalkan markii dambana xaafadda ayaan deganay way ka dambeysay cisbitaalka de cisbitaalka wali waa cisbitaalka koobaad dhammaan qofkii xanuunsada qofkii wax maartay dhibaato soo gaadho lagu sameeyo shirkadahaana muddooyinkii dambe caawin badan baan cisbitaalka u geysanay inkastoo anagu cisbitaalka hawlo badan dheeraad u baahay wadda cisbitaal waad ka garanaysaa wadi kartib uu baahan yahay laakiin waa burco waa cisbitaalkeedii marka adiga de si gaar ah ku taabataa Soomaaliya marka cisbitaalka burco laga hadlayo boqolkiiba shirkadahaana runtii qiimo badan baan gelinaa dhaqaale badan baan gelinaa waxaan ka caawin karaynaba halkan qaybtoo kalena waxaan ku arkayay raadka dahabshe qaybtana waa qayb iyadana saan kuu sheegay markaan yaraana jirtay iyada lafteedu waan xusnaa shirkadahaana iyadana waxaan la qaban karaa waan la qabanaa Cabdirashiid xarunta markaad leedahay dabcan waxa meesha soo galaysay sayladii horena ay noo soo hadal qaadnay صح xusuustaadii ugu horeysay ee sayladan burco maxay ahayd Cabdisalaan saylada aad xustay waxaan oran karayaa waqtiga iyo imikaba waxay ahayd xarunta dhaqaale koobaad ee gobolka Nuuleey xaruntaas aad xustay ee saylada burco horena way ahayd ilaa imikana way ahayd waxa weeyaan waa saylada ugu ballaaran baa loo oran karayaa Soomaaliyeed ay leedahay ayaa burco ku taalay walina ku taala xoolaha ugu badan ee laga keenayo dhammaan dhulka Soomaalidu ay degan tahay marka sababtu waxa weeye sida aad sheegtay burco de kulmisa safaradii ka imanayay koonfurta kuwii xaggan waqooyiga kuwii hawdka sababtu ma taasa anigu waxaan oran karayaa burco waxay kulmisaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba kuwa ka imanaya Itoobiya kuwa ka imanaya koonfurta kuwa ka imanaya gobolada dhammaan gobolada waa xarunta midda kale qiimaha xoolahana iyada jirta qiimaha la siinayo halkan baa jirta waayo burco maxaa kale u dhow dekadii barbaran way u dhow marka xoolaha halkan laga iibiyaa muddo kooban safar badan ma sii gelaya safar dheer ma sii gelaya Cabdirashiidow ereyadan kale imika marayno de cisbitaalka aad ku dhalatay aan ka dheeray iyaga maxaad ka sii xusuustaa yaraantaada waxaan ka xusuustaa xisbigii xabsigii dhexe ee gobolka ayaa isna naga xigay imika midigta waa xabsigaas weligiisaas uu jiray markaan yarayna waa jiray iminkana waa jiray mar walba xabsigaas yes dawlado kala duwan ha soo maro dareelkiisa ha kala duwanaado siduu eegi ha kala duwanaado laakiin goobtiisu halkaas bay ahayd sidaas karto halkaa inooga soo eegayso ay markaana kaaga soo eegayso Cabdirashiidow sayladii burcayni soo gaadnay sayladu berigii aad yarayd ma halkan u baahay way ka sii weynayd waliba imika waxaad aragtaa dhismayaal dhinacyada inaga xidhan baad aragtaa marka anugaan yaraan burco deganaa sayladan waxay magaalada meeshii xaafadii ugu dambeysay imika maanta intaasoo xaafadood baa ka dambeeya magaaladii way dhaaftay wali waxay u maqaalaan dhulkeedii dad badan baa degay marka way bannaanayd ban ilaahay bay ahayd xoolo badan ayaa joogay imika xoolo badan baynu ku arkaynaa dhinac walba ariga baa jooga geeli baa lagu iibinayaa saan kuu sheegay Cabdisalaan goortii hore geelaas iyo arigaasi wuxuu ka kala yimi dhammaan dhulka Soomaalida galbaan islee xitaa ilaa Kenya inuu ka yimi halkaasaa lagu kala iibsanayaa kadibna berberaa laga dhoofinaya ganacsiga Soomaaliya weli saas isugu xidhnaa dad qof walba halkaa jooga waa qabiilo kala duwan bay yihiin reeray u soo safreen halkan bay ka noqonayaan qof walba danihiisu ka shaqaysanaya
dee waxaa laga yaabaa iminka geela iyo adhiga halkaynu ku aragno ها in ay u dhoofi doonaan wadamada ugu shisheeya adduunka ilaa iyo sacuudi arabiya la geenaya هاي ilaa wadamada imaaraadka ilaa qatar hadaba ila fahamtay Haay, haay. ayaa geela la geenaya ya meelaha qaar waaba lasii dhoofiya ilaa Malaysia la geeyaa baa lagu yidhi هاي يا. هاي هاي dee marka waa kala ganacsi saas isugu xidhaya gudaha iyo marka dabadda ma la odhan karaa cabdirashiidow markaa aad yarayd xawaalada dahabshiilla bilaabmaysay ha iyo ilaa maanta ganacsigiinu qayb weyn buu ka yahay saylada lafteeda qasab هاي waxbay ganacsigu isku xidhan yahay Haay. ganacsatooyinka siyaabo badan bay noo isticmaalaan ها kuwa geela xoolaha iibiyey ama geelaa iibiyey ها lacagtoodu dahabshiil bay haddana dib u soo marta qaar badan waatay kuwa miyiga jooga هاي ee xoolihii laga soo iibsaday lacagta haddana dahabshiil ba qaar badan loo Waa maraya tahay. qaar badani dahabshiil bay systemkiisa ama ha u taallo ama ha u isticmaalaan e-dahab oo mobile payment ka mid هاي ah هاي lacagta xoolahaas lacagta kaashka isu bedeshay meelo kala duwan ayay nidaamka ay kaga xidhan tahay qaar ilaa marka dambe de xitaa marka la dhoofiyo waxaa laga yaabaa inay adeegin isticmaalaan aad iyo aad iyo aad ilaa iyo ragga maaragtay ganacsatada ama dilaalinta iibinaysa ama waxaasoo dhani waxay ku kala qaadanayaan e-dahab miga kuwa labada nin gacmaha is dhaafinayaan هاي هاي adiga هاي. arkaya ya labada nin hadda ay eegno ha huwa waxa u socday marka Baayactankii baa socda. baayactankii u socota way cabdirashiidow Eh. tan go'a la saarayee marka la baayactamayo Ha. sidaasoo kale loo baayactamo dee gacanta laysu dhiibo Ha. iyo suuqyada waaweyn ee saamiyada adduunyadu Ha. waxay iskaga mid yihiin wax badan bay iskaga mid yihiin Waay. horta marka ugu horeysa ganacsigu inta badan luqadu ba u kala duwane Ha, ha. waxyaalo badan bay wadaagaan way imika adiga ark New York Stock Exchange-ka hay waxaad arkaysaa ama London Stock Exchange-ka hay shares la iibinayo oo la leeyahay kaa ha la iibiyo ama kaa maaragtay ha la iibsado hay hay farahay ku wada hadlayaan dadka marka oo waxanay faraha la taagtaagaan ها ها. دائما تنا برعنا واتاس إذا ها. لبضان قيميه بقرنيان أي كوكلا مارت باعتميان ها. ما دونيان رجن كلا إن أي أركان ولا يا بكون رجن كلا لا تهاجني إن قار دونيان يقولون يبسدان مركا لبضان يمكن قيمة سوبر نجيان ها. أي كقرنيان رجن كلا كدنا هالكاسي أمس كديدين كعمها قرصون ها. أنا يحكي لي يبسدان imsa laga siiyey markaa awrkan awrka waxaa laga siiyey sidaa maarta hay iyo sidaa way oo u dhiganta ha ha $630 intii hore dhawaan gartay laakiin oo u dhigantadaasaan garan waayay sidaa maarta hay iyo sidaasi Ha. waa $650 $630 oo markaa geela ma qiimahaas unba la kala siiyey maya ha maya ee kuwa hay kaa maarta kaa hay yardee kaasi wuu yariyey ma garanaysaa mhm isagaaba ka qaalisanoo kaa waxaad iskirtay sidaa iyo sidaa way oo dee baruur buu leeyahay ma garanaysaa oo u dhiganta markaa oo u dhiganta Ha. $650 650 maasha Allah kan maarta hay kaa kuwa ugu qaalisan maxaa la siiyaa imika sidaasaa la kala siistaa way sidaa maarta ha ha oo u dhiganta $900 $900 marka waa neefkaale ugu dambeeyey waa ka aanay uga dambeeyey hay ee dee nooca ugu waaweyn hay hay ma garanaysaa marka ma ee ugu baruurta xoolo ugu qaalisan yihiin saylada maya imika waa iid hay markaa iidta xoolaha waaweyn baa la keenaa ee dee la reebay way ee carruurta lagu iidsiinayo hay hay neefba neef ka weyn baa la keenaa way markaa sidaasay qaali u yara yihiin xoolo waa $750 meelahaas laakiin caadiyan xilliga ugu qaalisan waa carrafada Soomaaliya waa imika oo kale waxa weeyaan lacagta wax lagu kala qaataa marka xoolaha la jaro ee la kala goosto hay ee baayacadu dhammaato ha ha waxa weeyaan lacagta ii dahab baa lagu qaataa marka Bangiga kaash ku soo bal dhacda. kala qaatay inta badan ma iyadoo dollar baad ayaa galabtii laga qaataa shirkadda Haay. dahabshiil way group sidaa wey adigu wuxuu ka yimi hawdkan dhexe gorgore halkan xalee jiray gaashaamay ma ka yimi okay aagaasu ka yimi haye hadda la rogay haye sacuudi arabiya tagaya ما شاء الله ismana taagayo waan gartay si wacan aad ugu soconaya ما شاء الله si fiican oo sharaf leh aha ayaana loo keenaa oo dhoofinaa ما شاء الله arigeena aad buu caafimaad u neefkii maxaa la siistaa iminka marka ariga ariga waxa la siistaa mitalan waxa la siistaa $380 ha ha ku doono waa ku doono ka badan yahay
daariga dhawrtiisuna oo fiican tahay imika Soomaa هذه الحمد لله وعافاك عيال cabdisalaano saad la socotay haay Soomaalidu waxay jirtay arigeena madaxa madowlaba caalam isku haystaan haay meelaha qaar waxba iska yara jira imika ingiriiska oo kale markuu cadan deganaa xool cadan Somaliland waxyaalaha uu ku jeclaa waxa kamid ah wuxuu keenay jiray cuntadii uu cunayay oo uu u badnaa xoolaheenaas ay u badnaayeen wadamo badan oo carabta ay xoolaha Soomaalida ay ku nool yihiin oo lagu iibsadaa marka qaar kood imika halka warshad baaba laga sameeyay xoolaha lagu qalo oo ilaa Malaysia xoolaha ay gaadhaan waa dhadhanka xoolaha Soomaalida gobol walba oo Soomaaliyeed afka Soomaaliya ku yimaadaana xoolahaas oo kala yimaadeen muddo kooban waxay kaga dhoofayaan berbera muddo kooban waxay ku gaadhayaan wadamada carabta oo aad ugu baahi ugu qaba imika siinada waxaan ka joognaa qayb kamid ah cirifkii baynu ka joognaa marka xagga dhaxaa ugu muhiimsan iyadana si booqan karnaa hadii alla ka dhaweeyo aan sii marro xaggaynu ka nib waxay xoolo la dhoofinayay ee tirada badnaa halkan waxa weeyaan waa xoolihii lagu cunayay wadanka gudihiisa ama daabaxada u yaqaanaa daabaxada gaar ahaan magaalada imika Burcaynu joogno lagu cunayay wadiga arkaya laba neef ama saddex neef baa lagu hayaa dad badan baa ka shaqeynaya waliba dumar baa u badan alxamdulillah waa fiican tahay in dhaqaalaha wadanka qayb badan cabdisalaan dumarka ka qayb qaata marka cabdirashiid qofkii daabaxad doonaya halkan uu imanaya qofkii xoolo la dhoofiyo doonaya wakaas saasuu marketku kala qaybsay dhinac waa geeli oo tiro badan la iibsanayo dhinac waa arigii oo tiro badan la iibsanayo dhinac waa dhowr neef oo kooban adiga imika cabdisalaan dad laba neef u baahanta waa laga iibinayaa cabdirashiid imika waxaynu ku sugannahay bartamaha magaalada Burco halkan ku dheedo xusuus gaar ah ku leedahay Soomaa halkan markaa yaraa alaadu yaraa cabdisalaano iskuulkayga xaggaas u ahaa siyaad baa la oran jiray way gurigaanu deganay markaasna xagga dhinaca busna ahaa waan soo lugeyn jiray halkan baan iman jiray bakhaar bay markaa ahayd xagga daba qol yar baa ku yaalay dharkii iskuulkan ku bixin jiray kadibna macmiishan u adeegi jiray way de fooqani kaba dhisnay markaas bakhaar u baahay Soomaa bakhaar baahay fooqi markii dambe muddo dambe kadib ayaa loo bedelay fooqaas markii ay maartay adeegii macmiishu ay sii balaaratay shaqaduna sii balaaratay marka aad abal la shaqeynayay cabdirashiid oo hadaa ku weydiiyay iskuulka dhigaysay daadaada maxaad ku qiyaasay waxaan oran karayaa xaqiiq ahaan horta anigu yaraanteeda aabaan la bilaabay way toban jir oran karaya markaan ka shaqeeyay assistant ka ahayd ama kaaliya haay inta badan lacagtan uu ruun jiray way kuwa ku fiicnaa tirista lacagta way marka toban jir bay marka waxa la oran karaa ganacsiga waad ku soo dhex barbaartay aad iyo aad wax kale wada baan noqon badee muuqaalka xaafadan aynu imika joogno maxaa ugu weynay iyada iska bedelay baad oran lahayd si xoog la isu bedeshay way halkan hurdeel hurdaabay ahaan jirtay way hurdeelkii hurdada ahaa waa tahay imika intaas oo bisisa laga dul furtay oo bacadlayaal baa laga furtay xaggan guri bay ahaan jirtay iyadana waxaa intaas oo bisisa laga furtay way halkan laftiisa hurdeel hurduuha way hurdaalkii hurdana imika uu qarsooyay hurdaalada ugu wanaagsan buu waqtiga ahaa halkan waxay ahayd meel typewriterka qoraalada lagu barto araajida iyo lagu samaysta bay ahayd marka meel walba xusuus gaar ah bay leedahay laakiin dhammaan meheradihii dhulkii aan aqaanay oo dhani wada bacmisharigaad imika arkaysid ayaa ka furan waxaan kuu sheegay dhowr hotel midna xagga naga xigo midna xagga naga xigo mid xagga hore xigo qaar xaggan xigaan waxay muujinaysaa Burco dadka degan waqtiga anigu aan yaraa walina qayb ba ka sii jirta dadka degan iyo dadka iimanayay waxaad moodaysaa inay isleeyihiin dhammaan dadka safarada u imanaya ama xoolaha keenaya ama ayaa iyaguna aad u badnaa bakhaar halka waxa naga iibsanayay dad geenaya maaragtay balad weyn alaabta u qaadanaya qaar gaalkacyo u qaadanaya qaar buuhoolda u qaadanaya qaar hargeysa u qaadanaya qaar xooloodii berbera ka dhoofinaya marka ganacsi bay ahayd xarun ganacsi marka cabdirashiidow walina way tahay mar kastoo aad dhismahan galayso dee saacadda dib baad u celisaa Soomaa tii ardaynimadeed soo xasuusatay saacadda dib baad u celiyaa bal kala hadda dib baynu wada celinayna dib baynu wada celinayna cabdisalaam cabdisalaam ku soo dhaw halkii ugu horeysay ka shaqeeyay markaan yaraa taariikh la yaab leh aniga ay tahay cabdirashiidow maanta dee wax kasta waa digital farsamadii casriga ahayd ee ugu dambeysay baa lagu shaqaynayaa kaashiiradii waa kuwa fadhiya waqtigaa aad koraysay
shaqada halkan ka bilowday sidee loo shaqayn jiray runtii cabdisalaam waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan waqtigaa sida loo shaqayn jiray waxay ahayd qofku marka hore isaga lacagta wuxuu ku bixin jiray ama imaaraadka ama cadan ayuu lacagta ku bixin jiray warqad yar rasiid ah oo aad u kooban oo ay ku taalo qofku markuu carabta ka shaqeynaya qoyskiisii halka degan ayuu lacagta u soo dirayay marka wuxuu oranayaa xaaskaygii oo la yiraahdo Khadiija Cali ama Aamina Maxamed ama caruurteedii hebel ee lacagta la siiyo rasiid yar oo kooban ayuu qofka halkan keysin jiray rasiidkaas uu lacag ku qaadan jiray lacagta waqtiga la qaadan jiray waxay ahayd Soomaaliya shilinkii buu ahaa dollarka imika ay dadku qaadanayaan ma ahayn maanta se waxaad arkaysaa halka counterada ku yaala qofku wuxuu ku qaadanayaa hadduu dollar doonay uu ku qaadanayaa hadduu doonay lacagtii waddanka uu ku qaadanayaa hadduu doonay dahab baa loogu shubayaa oo mobile payment ka toos ugu dhacaysa hadduu doonay dahab plus oo $150 maanta laga isticmaalo maalidan eegay wadamada lagu isticmaalo waxa kamid ah Fiji Island Vietnam Palestine imka dhibaato ka jirto waa wadamada iska ilow Mareykanka iyo Ingiriiska labadana garanayno wadamada noocaas ilaa Australia ayaa dahab plus laga isticmaalaya marka halkaas bay maanta maraysaa markaan ka hadlayaa waa markaa rasiidka markaana sida qiyaasi Cabdirashiid lacagta de wadamada aad sheegayso ama Yemen ha noqoto ama Imaaraadka laga soo diri jiray laakiin wax halka laga diri jiray ma jirin Soomaaliya qasab ma jirin halkan dad baa laga diri jiray baa filaya iyo xoolo dhoofaya laakiin maanta lacag waxa u diri kartaa Imaaraadka halka ugu diri kartaa Saudi Arabia u diri kartaa maxaa la Yemen baa u diri karaysaa Mareykan baa u diri kartaa Europe baa u diri kartaa adduunka qof baa dahab plus ugu shubi kartaa lacagta ka qaadanaya South Korea ay meel ka isticmaalayaan South Korea ay ka isticmaalayaan Europe halkaas loogu shubaya dahab plus kiisba kala baxaya marka Soomaalidu inta badan waxa la oran karaa xagga dhaqaalaha iyo businesska ku fiican businesskeenaasi caalamka oo dhan buu isku wada xidhay dadka shaqeynaya waa dad Soomaaliyeed baa u badan dadka adeega isticmaalaya dad Soomaaliyeed baa u badan qasab wadamada kale gobolka ama Kenya ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto ama Djibouti ha noqoto ama Rwanda ha noqoto ama Uganda ha noqoto dadka badan ee isticmaala maanta dahabshiil waa dadka wadamada u dhashay gartay laakiin waxaan ku faraxsanahay in shaqadii ka bilaamatay goob halkan oo kala ah inay maanta caalamka oo dhan gaadhay Cabdirashiid hadaba su'aasha jeclayna halka ka weydiiyay waxa weeye adigu ka maamula guud ahaan sharikada ama ganacsiga de 150 wadan in ka badan gaadhay sida loo maamulaa horta su'aashaas waa su'aal daawada madax daalinaysa marka Cabdisalaam way jirtaa waa run horta dad badan oo dahabshir ka tirsan Ilaahay mahadii baa jira oo wadamada Ilaahay ka wada shaqeeya adeegay macaamiisha u sameeynayay markiiba fulinaya maamulayaal kala duwan baa jira oo wadan walba kala jooga xarun baa jirta ay ku soo ururto laakiin haddana ma aha wax fudud in 150 dal oo waqtigoodii kala duwan yahay oo luqadii kala duwan ka hurdayno hadlayno imika waxaanu hadlaynaa filay waa ilaa 8 subaxnimo ayaynu hadlaynaa saacada geeska Afrika wadamo badan imika waxay u tahay saqdi dhexe qaar Australia oo kala aanay maalintii labaad ba u bilaabmaysa marka imika hadan doonayaan la hadlo maamulihii Australia joogay imika kulumba igu dhow inaan la hadlo haddana imika aan la hadlo iga seexanaya marka markasta waa saacad eeg waa saacad eeg meesha la hadlo xafiiskayga wax ku yaala dhowr saacadood oo adduunka ay kala sheegaya hadda bela fahamtay technology in cusub iPhone-kuna doob ku fudeeyo wadamada doonaysa inuu ku lis kareynaysa marka wad eeganaysa wadan walba markuu yahay saacadaha kala duwan qayb ka tahay luqadaha kala duwan baa qayb ka sharciga kala duwan baa wadamada kamid ah maxaa la yiraahdaa dhaqanka kala duwan baa kamid ah luqada kala duwan baa kamid ah mid waliba meelaha qaar wadamada waxa ka shaqeeya dad iyaguna wadanka u dhashay ma aha un dad Soomaaliyeed oo wakiil ah sidii ay ahaan jirtay lacag diris imika hadii Philippines loo diray dad Philippines baa lacagta bixinaya hadii India loo diray dad India baa lacagta bixinaysa hadii wadamada qaar af Carabi ku hadlaya baa jooga Morocco kale oo ka shaqeyno dad Carab ayaa ku adeegaya Kenya af Swahili baa lagu hadlaya marka luqadaha kala duwan iyo gobolada kala duwanba maamulkeeda leedahay Cabdirashiid marka haddaan taas su'aal kale ka sii weydiin dadkaan anigu kamid ahay oo ganacsiga wax yar ka yaqaana waxay yaqaanaan ganacsi waqtina la furo waqtina la xiro marka ma loo karaa dahabshiil waa 24 saacadood hadii iyo habeen toddobaad walba sanad walba dahabshiil waxa la oran karaa runtii maadaama wadamada 150 dalka shaqeynayo ma jirto meel waqti u xidhan yahayba haddii laantan ay xidhantay imka aynu joogno waxa furan inta soo laamood
haddii xitaa laamu xidhan yihiin maanta digital kuma xidhna haya adigoo guriga iska joogo siqda dhaxaa ayaad lacag u diri kartaa qof kale accountkiisa ugu shubi kartaa dahab ugu shubi kartaa dahab plus ugu shubi kartaa somtel iyo shirkadaha kale dahabshiil ku xidhan laftooda iyaga laftooda intaa way shaqaynayaan marka networkii dahabshiil marna lama oran karo wuu xidhan yahay aad iyo aad baad umahadsantahay mar kale laakiin cabdirashiidow markaa aad yarayd innaba qiyaastaada ma ku jirtay in ganacsigii aad qaybta ka ahayd halkan ka bilaabmay uu dee caalamka daafihiisa oo dhan gaari doono oo ilaahay mahad horta welina waa yarahay cabdisalaan oo haya gaboobin laakiin waxa weeyaan waa ilaahay mahad in shirkaddu ay ballaaratay oo qiimaha leh aabbo oo shirkadda aasaasay ilaahay jazaaka allah khayr ha ka siiyo dhammaan dadka ka shaqeeyana ee kala duwan waxaa jira dad shirkadda ka shaqeynaya ilaa maalintay bilaabmatay ilaa maanta u shaqeeya uga mahad celinayno qaar cusub baa jira oo ku soo biiray qaar baa jira shirkaddii jirta dhashay oo da'doodu ninkan oo kale imse jir baa tahay adigoo raalleya 22 marka 22 waxa weeye shirkadda jirta ma dhashay haya kayde 22 jir marka waxa ka hor baan ka shaqeynay halkan ya ninka kale dhalinyarada laftiisa soo sheegay magacaaga adigana aasad haye sideelaad jir weeye cabdisamed sideelaad jir weeye haya shaqaalahan uu ka mid yahay shaqaalahan uu ka mid yahay adigood ka yar weyn tahay cabdisamed ka yar weyn marka waa dhalinyarada weeyaan shirkadda ku dhex dhalatay hadda mila fahantay ya iyo odayaashii dee markay bilaabmatay shaqaynayeen iyaguna way joogaan cabdisalaam waa tay halkan waa xaruntii dee ugu horreysay ee dahabshiil magaalada burcaynu weli joognaa xaggee inoo xigta halkan waxaan ku tusayaa meelihii ugu muhiimsanaa ee burco ee ay yaraanteedii arki jiray qasab magaalada way isbedeshay aragtideeda meelo badan bay iska bedeshay laakiin wixii aan xasuusta waa kuu sheegay haddii halka dhigo cabdirashiidow xaruntii ugu horreysay ee dahabshiil baynu ka nimi oo dee dabcan meeshii aad ku soo dhex barbaartaya dahabshiil sanadadii wakhtigaa ka dambeeyey sidaan ka war hayo way kobocday laamo badan bay dee gudaha ku yeelatay iyo waddamada khaliijka 88kii dagaaladii dhacay sidaba idiin saameeyey 27kii May 1988 haya maan ilaawin way maalintaa dadku waa nasanayeen qasab waa maalin jimcaha waxaa soo galay ciidamo SNM ayaa wadada hawlka ka soo galay way ciidamadii dawladda inoo markaa way joogeen dagaalaha magaalada ka dhacay way xaafad ama maxaa leedahay street ayaa dagaal ka dhacay way labada ciidamo markaa ka dhaxeeya ciidamadii SNM iyo dawladdii ka jirtay maxamed siyaal barre way khasaaro badan baa dhacay dhimasho badan baa dhacay ganacsigii bay saamaysay noloshii caadiga ah bay saamaysay wax walba dhowr casho markii xaafadihii iyo wax walba aanu deganay qaarra ay dubeen dad badanna ay dhinteen cabdisalaanow isla waddadaasaan low uga baxnay annagoo marba gidaar ku dhuumanayna oo xabaddii dhacaysay iyo dhaawaceedii marba gidaar lug gaariga xitaa waanu kaxaysan kari weyne gabadhadaan lahayn magaaladan ka tagnay qasab dadkan wax la mid ahay qaxeen waxaa la tegey miyi iyo dhul badan baa la tegey dhibaatooyinkii baa sii fiday aakhiri 19 wadigoo ogaa iyadana ka dhacday dagaalkii sikaysla ka dhacay muqdisho soomaali markaa qurbay u carartay waxay markaa hadda inoogu keentay sidaa soomaaliba inaan markaana noloshii iyo ganacsigii dib u soo bilowno ganacsigiina gaarsiino caalamkii ay soomaali tagtayba marka cabdirashiidow ma la odhan karaa xitaa markaa aad qaxayseen ee xeryaha qaxootiga la joogay ama markii dambe saad sheegtay 1990kii burburkii dawladdii dhexe Soomaaliya mar walba adeegyadiina waa barbur wadeen dadkii qaxayay annagu miyi baan u qaxnay markaas miyiga aan u wadnay lafteeda adeegii waan u gaarsiinay markii dambana xeryaha qaxootiga Soomaalidu ay tagtay waxaan ka furnay wakiilo iyo laamo Ethiopia oo dadka ay u qaxeen xafiisyaan ka furray Yurubta iyo Mareykanka iyo Australia iyo Soomaaliya tagtay Kenya oo markii iyadana 91 loo qaxay meeshii dad u qaxaba tantu waxay keentay inaan adeegii gaarsiin marka waxa la oran karaa lifeline baa hayden soo maaha ama dee sida kaliya dadka wax lagu gaarsiinayay sida kaliya Soomaali markay dagaal ma dhacaan iyo dhibaato dhacdo Soomaalidu way sacaawiyaan annagu waxaan wax qayb weyn ka qaadanay in dadka ay lacag isu diraan sacaawiyaan
oo adeegi meel Marka, oo adeeg ay aaminayaan oo qiimo maartay hagaagsan ay bixinayaan inay isu gaarsiiyaan ayaanu ka qayb qaadanay ilaa 88kii ilaa 91kii ilaa maanta cabdirashiid oo markaa isbitaalkii aad ku dhalatay baynu soo aragnay ganacsigii ugu horreeyey ama xaruntii ugu horreysay dahabshiil ayaynu soo aragnay ee shaqada aad ka bilowday dee jidka qudhiisa xusuus dheer buu kuu leeyahay markaa xusuus gaar uu leeyahay waa waxyaalaha marka meel dagaal ka dhaco qalbigayga meel baa madoobaata meeshay doontaba ha noqoto waayo waxaan xusuustaa halkaasaan uga lugeeyey yaa dagaalku waa dhibaato cabdisalaan waad ogtay haya ku qabsada waa ka warhaya waad ka qaxday waa qaxii ugu horreeyey buu ahaa anigana kaa suudaanay inkastoo adigu aad gaari ku qaxday anigu lugaan ku qaxay cabdisalaan haya dad kaloo dhibaatooyin ka xun soo marina waa jiraan aad iyo aad baan dagaaladu markay ka dhacayaan ay u saamaysaa nasiib wanaagda waxaan ku odhan kayaa laakiin meeshaan maalintaa ka qaxnay maanta petroleum le home petroleum oonu maal gelinay ayaa ka furan marka gawaadhida baa shidaal ka qaadanaysa maanta cid qaxaysaa ma jirto qasab berigaa bajaaj ma jirin halkan waxaa ahaa gawaadhida waaweyn ee hawdka u baxda ayaa ka bixi jirtay iyo kuwa ka soo gala marka hawdka markaan u jeedo xaggan waxay naga xigay hawd waa reserve area ama Soomaalidu say u taqaano qofkii markii Ethiopia qabanaya waa deegaanka Soomaalida halkaas ka baxaya hadii halka ka baxay cabdisalaan jijiga waxa laga yaabaa inuu waa gaadhay waqtiga lagu qaadato haya imika waxaanu ku sugannahay mid ka mida biriishada ama buundooyinka ku yaala magaalada Burco bridge-kan waxaa la yidhaahdaa bridge-ka Dahabshiil maxamed cabdilaahi nafaqo waxa weeye guddoomiyaha gobolka Togdheer guddoomiye bridge-kan muhiimadii taladu magaalada u yeeshay runtii cabdisalaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay manageka Dahabshiil group iyo cabdisalaan herdi oo saxafi weyn inaad maanta nagu soo boqotaan gobolka Togdheer xaruntiisa Burco bridge-kan runtii wuxuu leeyahay Burco ahmiyad weyn laba jeer baa bridge-kan la dhisay oo Dahabshiil dhisay mar waxaa laga dhigay inta baahi weyn loo arkay oo qof ku dhintay oo uu cid ku qaaday oo gawaadhi ku qaaday oo dad dib badan ee dadka kala mutay ayaa waxaa laga dhigay bridge luga oo dadku ka tallaabaan oo dheer oo toos u mara oo dadku lugeeyaan gawaadhida iyo wixii kale iyagu iska mari jireen markaa dhib kastaas kaga qabaan markii dambe xaajiga waxaan runtii ka codsanay markii aan aragnay dadka inay bateen oo dhibaatadii ay mar walba ay sii kordhayso in bridge-ku nooga dhigo bridge gawaadhida iyo dadkuba isticmaalaan ilaa khayr siiye waa naga aqbalay marka dee waad aragtaa falilah alxamdulilah waxaanu xadhig ka jarnay sanadkii hore ayaanu ka jirnay 2023kii Burco bulshada Burco runtii aad iyo aad bay shirkadda Dahabshiil group ay ugu ducaysay abaalkeedana ma gudi karto reer Burcona haddaan nahay maaha markii keliya Dahabshiil group ay wax ka qabato magaalada Burco aynu ku sugannahay maxaa kale aad tilmaami lahayd wax badan inta guud haddii caafimaad ka noqoto haddii waxbarashada noqoto bridge-kani maaha bridge keliya bridge-ka labaad baa isla jira oo ah maxay tahay qasabka oo isagoo kan ka horreeyey oo isagu maxay tahay baahidaas oo kale iyaduna ay joogtay oo dooxani dhinaca kale u mara oo isaguna intagi doona waa bridge-ka labaad weeyaan oo sidan oo kale markaa guddoomiye isu socodka magaalada khaasatan xilliga roobabka muhiimad intee lag bay bridge-yadan u yeesheen waxay u yeeshay muhiimad aad iyo aad u weyn cabdisalaan waad garanaysaa iyadoo lagu dhibaataysnaa oo gawaadhidu ay ku dhex baktiyi jirtay dadku ay ku dhibaatoon jireen maanta waa adiga arkaa dadkii iyo gaadiidkii way marayaan ahmiyadda aan uga codsannay shirkadda inuu noo dhiso ama mid lugeed ha noqoto ama kan gaadiidka iyo dadku wada maraya ha noqotaan waxa weeyaan dhibaatadii ka soo gaadhay bulshada Burco hadday gaadiid noqoto iyo hadday dad noqotaba sida inan ku dhimatay oo dadku qaaday waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo qayb weyn runtii ku lahaa bridge-yadan iyo maxay tahay qorshaynteeda cabdirashiid maxamed saciid
cabdishiid dahabshiil oo maalinta shirkadda dahabshiil guruuba shirkadda dahabshiil burco keliya wax kama qabanee somalilan oo dhan iyo soomaaliya geeska afrikaba wax ballaaran bay ka qabatay oo la taaban karo intii waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo shirkadda cabdishiidna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa nin dhallinyaro ah oo aqoon-yahana oo runta intii shirkadda uu joogay wax badan iyo isbeddel badan ay ku timi iyo horumar badan laala سلام يقدو بيبا هاي حافظ أنا غير ها والله يا بنات تسمع لك وعصب تاعي هاي أنا غير تبون بدن له ها أي أنا يقود بتشري حافظ أنا تقرين هنا كمية فقرين حافظ برهرج مركب برعان ولا أكون ولا مركب هالكن قصب بريش ميل هاي حميل هاي تقبل هاي مركب بيو سود سامي وين بيقولها حافظها نور هاي داد بدن أو علوس أي كيف أنت حاجة ولا قلبك هاي حاجة الصعدة تجي وينا برعو بيها جارسينيا كونفورت الصومالية جارسينيا بقى حاجة المرية مركا مقالوا دوي كلو جوج خاصة أنا قاير أدلو غيري كمان جوج مركا ما تعرف إن بريج كاويرين تالك أي جوادني إن عوض الصداع فيان جناعسي والصعدة هدي الروب دو إن أنا لقينا حين لقوا فرحيو وقت جاي يا روب ولا ينعشري خاصة دو كلو جويني يا موقتي مركا عبد الرشيد واحد شغلينا كويديو dahabshiil waxay caan ku yihiin xagga samafalka ama gargaarka ama dadka baahan siday doonto baahidaas ku timaadeen mashruucan oo kale markaad aragtaan iyo mashaariicda kale la mid ah rajaynta lag bay idin gelisaa ama muhiimadda lag bay idin leedahay xaqiiq ahaan dhammaan dhulka iyo wadamada ka shaqeyno oo dhan waxaa naga go'aana oo gudoomiyaha shirkaddan uu go'aamiyey in dadka aan u shaqeyno wax lagu celiyo ama ha noqoto bariijada noocan oo kale ha noqoto ama guud ahaanba arrimaha samafalka ha noqoto isbitaallada muqdisho ku yaalla badankooda oo dhan shirkadda waxbay tagtay jaamacadaha dhammaan dhulka soomaalida ku yaalla dhammaantood mid walba lacag joogtaa bay samaysaa mid aanay dhismaheeda ka qayb qaadan mid aanay qalab u geynin ma jiro mid walba uu ku jiraa waxyaalaha abaaraha markay dhacaan biyo dhaamisku dhaco gaajada culus dhacdo ما داون كره wax alla wixii aan lacag hayno waan u galeynaa waxaas waxay naga tahay dadku marka aad wax ku celisid ee ay dadku nabad helaan ee ay nolol helaan ba ganacsina imanaya wariga markii dawlad ku sheegay Cabdi Salaam هاي wax walba naga burbureen waa luqeena Sooma taasaan naga go'aana in wax alla wixii nabad dhisaya ee dadka noloshooda dhisaya haddana ay dahabshiil oo dahabshiil guriga kala duwan shaqada kala duwan maanta inay dadka wax ku celiyaan ka qayb qaataan shaqo abuuraan ganacsiga yaryar laftooda la maalgeliyo kuwa dhexe la maalgeliyo dhammaan ganacsiyada aragtay magaalada magaalooyin kale baa ahaatee sibay shirkadda dahabshiil kala duwan bay ugu xidhan yihiin